بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهرينتي سياسة اللغة معدة هاي سياسة اللغة مركز لها الليو وسياسة اللغة ودنك أيها كوه مركز هوري إنه ودن كلية هاي سياسة اللغات سياسة اللغات ودن كو إنه ليه هنا waxyaabo dhowr ah ayay qeexaysaa kow luqadda qaranka luqadda rasmiga ah luqadda xiriirka caalamiga ah iyo baayac mushtarka iyo cilmi baarista iyo sayniska iyo loogu talagalay inay kulli kala qeexan yihiin taasi waa meel ta kalena waxa ay tahay in luqadahaas gooni ahaan luqadda rasmiga ah iyo luqadda qaranka isku midna waa noqon karaan waana kala gedisnaan karaan in ay yacni yihiin inay leeyihiin qaab lagu horumariyo ay leeyihiin guud ahaan waxa waaye taas wax badan ayaa naga dhiman wax badan ayaa runtii naga dhiman siyaasaddaas guud marka waxaa hoos yimaada siyaasadda la xiriirta luqadda loo isticmaalo luqadda marka laga hadlayo marka contextiga waxbarashada marka taas intii dambe wax badan ayaa nooga hagaagay run ahaantii taariikhda iyo meelahay soo martay iyo magalaayo laakiin manhajka hadda jira oo aan anigu ka qayb qaatay qaab dhismeedkiisii hore iyo in loo sameeyo xayndaab manhajkaas hadda noo qoran waa wanaagsan yahay meel fiican oo laga bilaabi karo oo wax lagu sii dari karo waaye galaaska koowaad ilaa galaaska sideedaad waxaa waaye af soomaaliga ayaa lagu qaataa af carabiga iyo maaragtay af carabigana waxaa waaye waa sidoo kale oo luqad ahaana loo qaataa iyo diinti ayaa lagu qaataa englishkana waxaa la bilaabaa kalaaska saddexaad ayaa la bilaabaa aniga hadda kama hadlaya dowlad goboleedyada maaragtay kale iyo sidaa kama hadla waxaan ka hadlayaa manhajka qaranka ayaan ka hadlaya waa meel wanaagsan oo wax laga bilaabo siyaasadda markii laga hadlaayo waa manhaj ahaan waa wax wanaagsan waaye run ahaantii taasi waa meel laakiin wax badan oo horumarin ah ayaa arrinkan luqadda la xiriira u baahan yahay oo cilmi baarayaashii ay hadda sheegeen Dr. Cabdinaasir oo kale presentationkiisu aad ayuu mawduucaas ugu faa'iido badan yahay runtii waliba wasaaraddu hoosa u dhugato tusaale ahaan in tacliinta yacni xadaanada af Soomaali lagu soo bilaabo يعني ومهم sidoo kale يعني arrimaha la xiriira tababarka macallimiinta iyo agabka iyo waxyaabahaas oo dhan waa waxa tayeynaya waa waxa tayeynaya waaye luqadda barideedii marka haddii la yiraahdo labada luqadoodba luqadda ugu horeyntii qaranka iyo luqadda officialka ah luqadda carabiga iyo Soomaaliga labadaba waxa waaye waa sidaas luqadda Englishka marka luqadda xiriirka caalamiga ee baamushtarka iyo ahna iyaduna waxa waaye tayanayo inta waxaan ku dari lahaa presentationada iyo la soo jeediyay waxaan ku dari lahaa arrinka assessmentiga la xiriira waa in la helaa qiimeyn waa in la helaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله بعد marka hore heritage iyo jaamacadda city university iyo dadka ka soo qaybgalay kulligood waa salaaman yihiin waana mahadsan yihiin dadka in la soo keeno oo laga doodo mustaqbalka ummadayada waa wax aad u muhiim u ah annagu waxa hadda FN isku fadhina waxa weeye waxbarashada aasaasiga ah iyo tan sare waxa iska leh kulli jaamacadaha iska leh haddana waxaa la soo bandhigay papers ama researches researchyadan waxaa moodaa wixii la rabay inay taabanayaan inay muhiim ahayd
sida uu sheegay professor Bariise waxaan ku raacsanahay xayndaabka loo sameeyey manhajka waa mid aad runtii loo diyaariyey xoog badan la geliyey wanaag badan la weeyey ilaalana u baahan wax markii la diyaariyana waxay u baahan yihiin in ayaga naftooda la sii horumariyo kolba wax laga sii fiiriyo haddii wax ka dhinaadeen wax kastoo la bilaabo waxbaa ka u baahan in wax laga sii bedelo la sii hagaajiyo u baahan yahay midaas weeye midda labaad the policy meeshaas uu yaalla haddii curriculumkii xayndaabkiisii la sameeyey syllabuskii la sameeyey scope and sequencekiisii la sameeyey bugtiin la soo saaray waxa weeye runtii aad ay u fiicneed ninkii dambe maxamed haaye soo saaray beberkiisa waxa weeye xagga luqadda markuu ka hadlayo waa wax meeshii ku jira weeye laakiin markan hore luqadda Soomaaliga waa dhaqankaygii oo dhan iyo jiritaanka anaga bay ka tarjumaysaa ilaalo aad u badan inooga baahan tahay inaan ilaalino aad ay muhiim u tahay waa waxa aan ku jirro weeye annaga hore usoo wareeray iyo in wareerin jiilka dambe iyo wareerin haddaan annaga dib ugu noqonno waxaan soo qaadanay carabi dugsi dhexe dugsi hoose ingiliishaan qaadanay Soomaaliyan qaadanay ingiliishaan u noqonnay oo waxaasoo dhan wayna soo wada mareen marka wareerkii nagu soo dhacayna ku dhacaan ma keenay wax fiican maaha su-aasha labaad ee laga hadlayay ahayd sidee labada luqadaha ay isu qaataan oo Soomaaligiina wax loogu bartaa tii kalena loo tadawuriyaa oo loo hagaajiyaa waxaan isleeyahay waxay u baahan tahay inaan fiirino yaa ku guuleystay oo meel gaaray oo wax qabsaday maxay xagaysa u mareen ama ha ahaadaan dawladda darisa ama ahaadaan dawladda naga fog ahaadaan dad waxaa jira markaad dhex tagto luqadooda wax ku dhigto meelna ku gaaray haddii ka soo qaadan waabaan Scandinavian-ka tagay wax ku bartay waxaan arkayay dadku afkooda ku hadlayeen afkooda wax ku baran hayeen haddana markii Englishku yimaado aksankooda kama naxayno aad buu u fiicnaa marka hataa balqaabka ayaga labadii isu waafajiyeen in la fiirsho way la fiicnaan lahayn haddii luqadda la yiraahdo luqadan Soomaaliya la qaatana waxa dhaqan guur baa nagu dhacayo luqadan idin ilaashana aad ay muhiim u tahay marka waxaan leeyahay luqadda iyada Soomaaliga aan ilaalino bolosigeedu waa noo diyaarsan yahay maadaama aan curriculum-ka haysano hal curriculum haysana haday waxaan arkay Axmed Sheekh Cali oo u maleynaya wali in manhaj kala duwan la dhigo ama meelo kale waa laga soo gudbay taasna waxaan leeyahay ceeb ma ay ahayn markii la kala dhigayay waxyaabo kala duwan markii dhulkii burburay waa la yaacay walba xuu soo qaaday haddii aan wax la soo qaadeen maanta la isugu yimaadeen fadhiga la fadhiyo yaa loo imaan lahaa yaa wax qaban lahaa in wax la sii qabtay oo la dadaalay weeye laakiin waxaan suubanayna waxa anaga sideen u tadawurinaa oo hagaajinaa wax uga qabanaa meel fiican aan u gaarsiinaa marka waxaan isleeyahay buug waa naloo soo saaray oo manhajkii waa la soo saaray way shaqaynayaan hal cilaa jirto oo wiilkii maxamed ahaa ka dambeeyey uu ka hadlayay manhajka la soo saaray intaan asaga enhancement lala aadin horta asaga la isku tababaro waqtigii hore waxaa jiray annagu aan wax baranaynay waxay ahayd waxa la baranayay content based buu ahaa war maxaad baratay bay ahayd laakiin hadda manhajka diyaarsan waa outcome based waay manhajkan outcome based ka macalinka uma diyaarsano marka waliba wuxuu u diyaarsan markaad akhriso waa mataqaana student centered approach u diyaarsan macalinkina uma diyaarsano marka waxa iska hor imaan hatta fasaladana si u fadhiyaan kuraasteeda si u taalo iyo waxa isdiidahayo muxuu ahaa ay sheeg syllabuska la soo saaray sidoo qoray way isdiidayaan marka waxaan isleeyahay taa ayada ah halka ah laga galo Englishka luqadaha la leeyahay waxaan u isticmaalaynaa maxay ahayd communicationka caalamkan u isticmaalaynaa aan leenahayna jaamacadaha la aaday jaamacadaha loo isticmaalo hala diyaariyo meel dawladdan waxaan leeyahay aan recommendation u siin lahaa dal marka la rabo in luqadiisa asoo kale wax laga qabtaa waxa dalka la leeyahay luqada laga baran karaa oo waxay keeni karaan waxa loo fududeeyaa macallimiinta ka iman karayo fiisiyaalka loo fududeynaya
waxaa loo fududeynaya ay sheegeen waxyaabaha canshuurta la saaray ee laga dhaafaya muddo loo qabanaya war 10 sano aan ku bedelo 20 sano taarget aan yeelano marka waxaan isleeyahay labadiiba waa isla wada fulin karaa dadaalna waa socdaayo aad baa loo dadaalayaa aynu wax ka wada qabanna halkaas waxaan maleynayaa warka waan badiyay raalli ahaada waxaan leeyahay mowduuca oo panelka oo si gaar ah u yahay waa luqadda laba qof oo iga horeeyay waxay buujiyeen Dr. Cabdinaasir wuxuu si guud u qeexay ilaa iyo hadda beberkiisii iyo cilmi baaristiisii inaysan jirin siyaasad cad oo luqadeed inaysan jirin oo yani ilaa yani waxa qoran waxa weeye ilaa fasalka 8aad in ardada loogu dhigo af Soomaali dugsiga sarena marka la joogo in luqadaha kale la isticmaali karo aan waxaan isleeyahay taa waxa ka horeysa xataa luqadii officialka ahaa ama luqadii rasmiga ee Soomaaliya ayaa waxaad moodaa mararka qaarkood inay ku jirto humaag ayay ku jira waad aragteen luqadda af Soomaaliga sida yani dastuurka uu sheegay af Soomaali ayaa ah luqadda Carabiga luqadda kalena ah ومع ذلك مركات أركتو براتيكا لا سمينايو iyo waaqica براتيكا لا سمينايو in Soomaaligi iyo uu gadaal u yahay Englishka la isticmaalayo Carabina ha sheegin marka anigu waxaan isleeyahay meeshaas ayuu af Soomaaliga meeshaas uu ka soo qalloocday labo anigu waxa ila tahay siyaasadda guud ee waxbarashada waagi kacaanka 18 qodob ayaa lagu qeexay siyaasadda si clear ayaa loo yiri af Soomaaliga waa luqadda waxbarashada falsafada ishtiraakiyada waa in la baraa isla markii waxa ku qornaa qodobka 18aad ee tarbiyada diiniga ahaana waa in la baahiyaa iyagana aad buu ugu jiray laakiin waa u cadeed meesha ay u socdaan si toos ay ugu cadeed laakiin burbur maadaama Soomaaliya uu ku dhacay waxaad moodaa in aysan u cadeen hatta waxaad arkaysaa waxa la yiri 8 fasal ay ugu horeeya oo primary-ga qaybta asaasiga in la sameeyo dugsigii sarana hadda manhajkii waa la dajiyay toos baa loo isticmaalaa af Soomaaliga hatta waxa jir imtixaanaadkii ugu dambeeyay ardada waxay aad uga sheeganayeen qaarta qaybta English ku dhigtay iyo qaybta af Carabiga ku dhigtaba in imtixaanada qaarkood loogu keenayo af Soomaali raali ahaada waa degan yahay laakiin ma lama helin iyo waxyaalo noocaas ani waxaan isleeyahay marka iyadoo loo diyaar garoobin ama diyaar garowgii loogu baahnaa aan la sameyn ayaa la galay taana waxaan isleeyahay waa caqabada qaybta su'aasha qaybta koowaad maxaa laga sameeyaa sidee ugu habboon looga bixi karaa marxaladan oo la isku qaadsiin karaa luqadihii caalamiga ahaa iyo luqadii af Soomaaliga ahaa waa la isku raacsan yahay sida intaasoo daraasad ay wada sheegtay UNESCO ay ka hadashay dawlado fara badan ay ka wada hadleen in ardada waqtiga asaasiga inay luqadda af Soomaaliga inay bartaan inay muhiim ay tahay afka maxalliga ah inuu barto inay muhiim ay tahay laakiin isla markaa in loo diyaariyo luqadaha kale oo qofku wax ku baranayo markaas ayuu u furfurmi karaa asbaabaheedina cilmi baarista kale lagu sheegay anigu waxay la tahay waxa ugu muhiimsan diyaar garowga marka la joogo waqtiga dugsiga sare la joogo in sida hadda ay nidaamkan uu tilmaamayo in la fasixi karo oo English iyo Carabi labadaba لأن عربينا وحو كتير سنية هاي واللقادة دينتنا أفكنا بل لما درسته وحي شيغان إنه أرض يقبرتو ويران لبا اللقادات إنه برتو ميد ريجنالا إيه ميد انترناشنالا إنه برتو مرة البابا عربي وحو كتير سنية هاي يعني سنة عالبي وقوية هاي سنة وحوية هاي وحو عبرها هويدنا أما جريتان كينا أما أننا ينبثلا كمسلمين إن الله مركا إن لبضبا إنه مرول بوح برشادة ولا الصعود أي أقوم مهم سنة مركا وقت جدوكس كسرة أما واحد يعكر دوكس سراء في إنجليزي لوجود لجو هالنقطة أما دوكس سراء في صوماليا لوجود لجو هالنقطة أما عربي لوجود لجو مرول بابا اللقطة كلا اللبضة كلا وإن السجن السحوجة لو دجاس لوجود ديار جريو مرحلة دا إن سراء دوكس اللي هي جامعة دنا
waxa weeye caalamka waxaa ka jira waxyaalo la yiraahdo dugsi sare marka uu ka baxo yani 2 sano oo loo diyaarinayo higher school loo diyaarinayo kale ama in loo diyaariyo hadda waxaa socda nidaamka ah hal sano oo yani lagu daray jaamacadda xilligeedii oo 5 sano laga dhigay oo si luqadii loo xoojiyo ani marka waxay la tahay xoojintu ha ka bilaabato waqtiga dugsiga sare la joogo inay xoojintu ay ka bilaabato oo luqadda hadba uu ku rabo inuu ku takhasuso in dhinaca laga xoojiyo ayaan u arkaa aad u mahadsantiin doodana waxaan rajeynayaa inay sanadaha soo socoto ay sii socon doonto si ugu dambeyn dadka Soomaalida ay siyaasad cad uga yeeshaan manaahijta iyo waxbarashadooda intaba odayaashii iga horeeyay ayaa dabcan si fiican u sharxay laakiin ani waxaan rabaa inaan wax yar aan guud ahaan sameeyo haddaan Soomaali nahay 4 marxaladood ayaan soo marnay 60kii iyo isticmaalka wixii ka horeeyay dadka Soomaalida waxay isticmaali jireen afka Carabiga haddii heshiis isticmaar lala galay hadduu yahay haddii heshiisyo beelaha Soomaaliyeed dhexdooda haddii yahay iyo haddii macaamiladooda gaarka ah afka Carabiga xoogana isticmaalka markuu yimid Ingiriis Faransiis iyo Talyaani baa noo yimid markii labadii gobol oo Soomaaliya israacdayna af Ingiriisi af Talyaaniga laga dhaxlay markuu kacaanka yimid af Soomaaliga la qoray kacaanka markii la qoray Soomaaliga waxa lagu bartay ilaa dugsiga sare laakiin horumarku af Soomaaliga sameeyay wuxuu ka sameeyay dhanka suugaanta iyo dhaqanka kama sameeynin dhanka tacliinta iyo waxbarashada buugaag oo dibadahaas laga keenay baa laga turjumay af Soomaali oo la yiraahdo hal dhigto jaamacadii markii la gaarayna mar kale Carabiga iyo Talyaaniga Ingiriiska soo laaftay dagaalkii sokeeyaa dhacay Soomaaliga iyo wax walba la iska dhaafay af Carabiga la aaday markii la arkay in Carabigii dawladda Carta wixii ka dambeeyay iyo 11 September wixii ka dambeeyay ayadana Ingiriiska loo leexday haddana 2018 ayaa haddana la yiraahdo Soomaaliga la soo laafto marka hadda aniga ujeedada meesha taalo waxay tahay warseen Soomaalina oo ahaana oo dhaqankeennii iyo afkeennii iyo diinteenniina u ilaalsanaa adduunyada horumarka ka socda oo dhaqaale iyo midka tiknoolajiyada iyo midka sayniskana aan ula jaan qaadnaa xaqiiqo ah in af Soomaali wax lagu barto inay dadka Soomaaliyeed maanta tabar iyo daaqad ay soo haynin oo ay tahay laba xadaarad oo waaweyn baa adduunkan ka jirta midna xadaarada islaamiga lahaa islaamka asal u ah iyo af Carabiga midna af Ingiriisiga asal u ah aniga waxaan jeclahay ama dadka oo leeyaan ahay war anaga xadaara islaamiga ka tirsanahay caalam carab ka tirsanahay luqadda dadka Soomaalida ay wax ku bartaan ay ku horumaraan af Carabiga aan ka dhigano Ingiriiskana luqad la barto oo aan danaheena iyo masaalixdeena adduunka aan ku qabsan aan ka dhigano af Soomaaligana ayada oo sidaas aan laga gudbaynin ayaa af Soomaaligana lahayn karaa qofka Soomaaligana af Soomaaliga iyo identity-ga Soomaalida aan la dhumin karin si wadamo badan hadda wadankan Kenya Soomaaliland way ku hadlaan af Ingiriisigana way ku dhaqmaan wadamo badan oo saas oo kalena waa jiraan xaqiiqo ah wadamo waaweyn oo xoolo haysta oo horumarsan ayaa hadda waxay ka guurayaan luqadahoodii haddaad aragto Turkiya haddaad tagto France Germany Talyaaniga China meel walbaba af Ingiriisi hadda jaamacadahoodii ay u guuraan marka haddaan dhaxno anaga af Soomaali wax ku dhigano adduunka tartanka ka socda dhaqaalaha iyo tiknoolajiyada iyo horumarka lamana qabsan karno haddaan dibadhac nagu jira dibadhac kale ma geli karno islaamkuna intuu ku haray islaamka aqoontan asaga laga qaatay Baghdad iyo Dimashq iyo Qaahira laakiin markii caalankii loo guuriyay warshadaha iyo tiknoolajiyada ayaa islaamku haray oo ay dhaheen ama waa bidco soo kordhay ama wax anfacay markaas la haray laakiin markii hore tartanka qayb baan ka ahayn waan la socon marka anaga hadda Soomaali hadaan nahay yaanan dadka Soomaaliyeed waa inay si caadifad ku jiran loo doodo oo si caadifad ku jiran ay isku warsadaan Soomaalinimadu waa la jecel yahay hadii la yiraahdo waxaana xaqiiqo ah wadamadan Carabta asbuucii hore waxaan joogay Amman Jordan
waxaan jaamacado Chinese iyo jaamacado Carab meesha ku shirsanaa jaamacadaha Chinese waxay leeyihiin afka Chinese-ga hal la barto hal jaamacad oo Carab oo tiri af Carabi hal la barto ma arkin kulligood waxay lahaayeen af Carabiga Chinese-ka si aan baranaa iyo si loo bartaa marka annaga marka meesha aan ka tirsanayn waa caalamul carabna luqadoodu waa luqad xoogan UNESCO iyo daraasadaha la sameeyayna 4 luqadood oo soo harahaya waa midkaas Chinese-ka ay ku hadlaan Spanish-ka Ingiriiska iyo Carabiga marka hadda luqad asal anaga Carabiga noogu dhow diinteennii iyo dhaqankeennina ayada waafaqsan marka waxaan looga baahan yahay doodan in la sii wado manhajka ay hadda amaanahayaan nimanka odayaasha aniga waa arag منهج في عن ما وزارة النواة جوكتا أيوه حيح الصومالي كو قرن باحن ترجمات داحن إنجليز كقرن باحن فيزيكس كأفحن بي أنت بحين هلا أركب وقت بدر إيو إن ما لهنا لو أركب هلا فيري لكن أنا بحاول بس كأمان ما فينا مركب منهج كان منهج ميل نجينا هي معهن حتى عند حصلنا هاي يعني دعك الدد كان له رشيد ما سنت وما سنتها بروفيسور فيري بانل كان وسلامية مرت شرفته يا مدحت الدولة كسعة السيدو كله وأمهد علينا يا معهد هيريتيج يو جامعة السيتي ضد لوقد الحريرتي سؤالها بانل كهذا توسو آدو وحي أخيارتي هرأي أضياش ويشيغين آدو سوء علم مايو لكن أرنت السياسة دكو سابسن sidii halkana laga soo jeediyay cilmi baaristii siyaasad cad oo la xiriirta luqadda oo qoran oo dokumentiya oo la tixraaco intii aan wax baarayay ma arkin si koobana waxa ay ugu dhex jirtaa dokumentiya kale ama ha noqdo sharciga waxbarashada ama ha noqoto education sector plan iyo waxyaabo la xiriira oo ayaga laftigooda markii aad akhriso maamul goboleedyada ay siyaabo kala duwan u qoran yihiin Puntland waxba u qoran Somaliland waxba u qoran federaalka waxba u qoran federaalka laftigiisa documentska kala duwan waxa dhici karta inay kala dambeeyay inay wax ku kala qoran yihiin oo aanay si isu waafaqsanayn marka meeshaas waxa ka cad in siyaasad qoran oo inta laga wada hadlay laga heshiiyay la documenti gareeyay la heli karo inaanay jirin luqadda la qaadanayo Soomaali may noqonayaan mise wax kale noqonay dabcan waa dood kale si guudna luqadda Soomaaliga dadka ku hadlana marka adduunka loo fiiriyo dad kooban waaye awood dhaqaale iyo awood siyaasadeedna ma lahan ama ma xoogana saameynayna arrintaas ku yeelanaysaa luqadda iyo jiritaankeeda iyo horumarinteeda luqaddu marka la rabo inay noqoto luqad waxbarashana waxay u baahan tahay in wixii ay u baahnayd oo kaabayaal ah haday ahaan lahayd manhaj casri ah oo adduunka la jaan qaadaya tababarkii macallimiinta ay u baahnaayeen agabkay u baahnayd waxaas oo dhan inay heli karto challengeska iyo caqabadaha haysta ayayna ka mid tahay gaar ahaan waxaan rabaa inaan xoogga saaro horumarka technology-ga iyo luqadda Soomaaliga oo runtii ay muuqato sida aan adduunka kale uga harnay in luqadeynuna ay uga hartay horumarkii technology-ga meesha hadda la marayo generative AI iyo luqadihii kale sida looga faa'iideysanayo iyo technology-ga iyo artificial intelligence-gi iyo luqadeena waxa laga yaqaano oo technology-ga looga faa'iideysan karo aad ay u kala fog yihiin tusaale yaraan rabaa inaan soo qaato maalin hore waxa xafiiska igu soo booqday arday jaamacadeena ka baxay oo hadda master ka wada South Africa gabar waaye shiray ka qayb gashay marka arrimaha technology-ga iyo looga hadlayo artificial intelligence-ga cilmi baarayaal ay kula kulantay ajaanib ah oo dalal kale ka soo jeeda oo ka soo helay mashaariic cilmi baariseed oo luqadaha sidii loo horumarin lahaa dhanka teknolojiyada ka soo helay shirkadaha waaweyn ee technology-ga maanta hogaamiyay sida Google iyo kale oo raadinaya dad kala shaqeeyo Soomaaliya luqadii mashruucii uu haystaa garantigii lacagtii uu haystaa wuxuu rabaa wuxuu mashruuc ku soo qaatay sida luqadda Soomaaliga loo technology-ga loo maxaan ku raahdaa loo gaarsiin lahaa oo ay u noqon lahayd maxaa yeelay dadkaas shirkad ahaan ayaga waxa muhiim u ah luqad walba adduunka looga hadlo in ay systemskooda iyo adeegyada ay bixinayaan inay ku bixin karaan
si customerskii aysan cidna uga tegin marka ayagiya waxay ku bixinayaan cilmi baaris iyo grants ku bixinaya oo raadinaya cid la shaqaysa innagana dabcan meesha aan joogno waa ka warqabnaa luuqadii laftigeeda ma lahan kayd aad u tiro badan oo horumarineed oo dhanka eray bixinta cilmiga soo kordhaya dhalinyarada aan ka hadlayno luuqadooda oo aan rabno inay luuqadii loo ilaaliyo dabcan waxaan u baahannahay inaan fahamsannahay casriga ay ku nool yihiin waa casri technology casriga teknolojiyadda wadiiqada ugu weyn ee la isticmaali kara waxa waaye in wax walba loogu gudbiyo teknolojiyaddaas in loogu gudbiyo luuqadeenni marka ma u diyaarsan tahay inay qaab technology ah wax loogu gudbiyo manhajkeenu ma u diyaarsan yahay resourceska iskuulaadka yaalla iyo luuqadda la xiriira ma yihiin resources technology ka faa'iideysanaya mase 30 sano 40 sano ka hor sidii buug ay wax ugu qoraayeen unbay ugu qoran yihiin waxyaabahaas oo dhan waxay u baahan yihiin aan isleeyahay in dood laga galo siyaasaad cad laga yeesho maalgelinna lagu sameeyo midda ku saabsan luuqadda ingiriiska dabcan jacayl iyo nacayb aan u qabno ka hadli mayno laakiin waxaan ka hadlaynaa stageka maanta ay joogto waa luuqad dominant ah oo haysata adduunkii say rabtaba ha ku timaadeen waxaan hadda ka hadlaynaa Soomaaliya inay ku biirayso East Africa Community waa dalal badankood ama dhammaantood ku wada hadla luuqadda Ingiriiska arrintaasu haddii aan ku biirno waxay nagu soo kordhinaysaa fursad iyo culays isla socda maxaa yeelay dadkeenni ma u diyaarsan yihiin inay suuqaas ka faa'iidaystaan laftigeeda language-kii iyo communication barrier-kii qayb uu ka noqonaya iyadoon adduunka kaleba la aadinba marka nasiib wanaag luuqadda Ingiriiska dadkii lahaa waa diyaarsadeen waa luuqad technology la jaan qaadaysa resourceskeedu u dhameystiran yihiin kaliya waxay u baahan tahay in si saxana loo baro macallimiintii bari lahaydna la helo resourcesku waa diyaarsan yihiin ama la soo amaahdo ama la soo iibsado challenges jira dabcan qofka Soomaaliga ah luuqadaas baranaya ku wareegsan oo ay ka mid tahay bay'ada uu qofkaas joogo kalaas uu galay macallinkii isaga English ku wada hadlay wixii uu soo bartay laakiin banaanka markuu tago dadkiisii u soo laabanaya meelaha ciladuhu ay ka imaan karaan ay ka mid tahay laakiin haddii manhajka iyo la hagaajiyo macallinka waxaan is leeyahay luuqadda Ingiriiska meel dhexna laga bilaabo waa lagu guuleysan karaa sidoo kale luuqadeena Soomaaliga ka sokow ardada la barayo mustaqbalka waxay u baahan tahay kaydkeeda iyo waxa ay leedahay qoraal ah iyo waxaan la sameynayo oo dhan oo shaqo ah oo socda in day hadhow kayd qoran ay noqoto intii aan hawshan barbaaray website-yada wasaaradaha dowladda ka mid ahaan galay dhammaantood badankood Ingiriiska ku wada qoran yihiin qayb af Soomaaliya ay leeyihiin marka qaybta af Soomaaliga gasho resourceski iyo documentiski Ingiriiska ku qoraa un baa dib ugu soo baxay oo wada Ingiriis ku qoran marka iyadana waxay muujinaysaa hadiiba maxaan ku raahdaa wasaaradihii iyo hay'adihii dowladda ay halkaas ka joogaan cidda kale oo laga sugayo arrintaas inay wax ka qabato ma aqaano waana mahadsantihiin salaamu calaykum arrintan oo afka Soomaaliga kaliya in wax lagu soo barto culeyskeeda waan aragnay ardada sideedaad markay ay ka soo gudbaanay dugsi sare u soo gudbayaan English ay si toos ah ugu wareegayaan ama Carabi u wareegayaan waxay keentaa in tayadooda waxbarasho ay aad hoos ugu dhacdo maadaama ay luqad cusub ay si kadis ah inay ula qabsadaan ay u baahan yihiin wax Soomaaliya gooni u ah ma aha Tanzania oo Sawaaxiliga luqad waxbarasho ka dhigtay problemkaas hadeertaan wali way haysataa doodahooda ugu waaweyn waxa waaye in ay tacliinta ay la lamaanayaan luqadda Ingiriiska oo sida Kenya oo kale ay raacaan case la mid ah waxa farqiga u dhaxeeyo Singapore iyo Malaysia oo runtii Malaysia dadkeeda Singapore dadkeeda ka dhigtay inay noqdaan multi language society oo dadka lagu soo barbaariyo luqadii wadanka ay lahaayeen oo Chinese iyo Malayga iyadoo isla markaana luqadii wax lagu baranayay oo luqadii sayniska aheedo Englishkana ay wax ku bartaan taas marka waxay na tusinaysaa in luqadaha gaar ahaan luqadda Englishka oo ah luqadda caalamka
inay muhiim tahay in xilli horeeto lasoo bilaabo oo meesha hadda dugsi sare laga soo bilaabayo sayniska sidiisaba loo wareejiyo englishka aniga sidaan rajayna siday ila tahay social science-ka iyo culumta kaleeto luqadaha iyo taariikhda iyo dhaqanka iyo civiga ku saabsan in luqadeena aan ku qaadano si luqadeena aysan nooga dhumin aad iyo aad u mahadsantiin bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa abshir cabduqaadir magaalada gaalkacyo aan ka imid jaamacadda gaalkacyo university su-aasheedu si toosa waxay u socotaa rektorka jaamacadda zamzam haddaanan qaldanayn hadalka ugu dambeeya uu yidhi baa rabe su-aale inaa weydiiya asagaana taabtay iskuulladii waxaan ku arkay primariga oo aan anigu joogo maamulo primary baan ahay af soomaali baa wixii laga wada dhigay waxa dhacay baan sheegayaa waqtiguna waa yerya waxaa dhacday qof oo aanan education ahayn inuu fursaddii soo codsado oo dadkii education waa ka beereen mudug aan ka soo jeedo faculty of education wax dhigta waa la waayay maadooyinkii koo science dhigta ama koo computer dhigta faculty of health dhigta ama political science dhigta yaa primary teacher ah dhaqaale yarna uu ku shaqaynayaa waa la waayay qof education af soomaaliya wuxuu ku qoran markaad tiraad maxaa u socodsatana af soomaaliya ku qoran yahay waa ka adkahay buu leeyahay arrintaasaa jirta kow secondaryga markaan fiiriyo waxay sameeyeen macallimiinta physics-ka dhigaysa chemistry-ga dhigaysa waxaa laga soo dalbanayaa simad iyo waxa waaye jaamacaddii camuud iyaa laga soo dalbanaya dhaqaale fiican ku shaqeynaya waxa dhacay baan sheegayaa physics-ka iyo xisaabta laba macallina loo kala qaadanaa macallinka physics-ka waxaa la siinaya juqraafa loogu daraa af soomaali ku qoran jajabso af soomaali ku qoran yahay macallinka xisaabtana asna dhaqaale fiicana la siinaa taariikhda ku darsaa la leeyahay waa jajabso macallinkii englishka dhigayay waxaa la leeyahay af soomaaliga jajabso su-aasheedu waxa waaye in maadooyinka kale af ingiriis maadaama ku qorayn xoogga la saaro maadooyinkii qofka maankiisii maskaxdiisa dhisayay la yiraahdo jajabso xal miya adiguna maadaama hadda waxa ku talisay af soomaaliya ha lagu qoro baa tiri maadaama sifig ay yihiin arrintaas waxay dhashay sidaa su-aashaasaa qaba maasantiin magacayga waa firdowsi nuur samatar oo ka socota jaamacadda banaadir kana mid ah ardayda hadda ka qalin jebinaysa facultyga IR and political science waxaan rabaa inaan weydiiyo horta wadan walba waxaa dhista dadkiisa dad walbana luuqadooda iyagaa dhistaan soo haddayse anaga naga muuqan wadannimo iyo wadan jeceyl see luuqadeena ku dhisi karnaa mideeda kale su-aasha kale waxay tahay luuqadda ingiriishka waxaa jiraan iskuulo oo public ee dhigaan dad ajaanib ah oo luuqadda si fiican yani waxaa dhiga dad ajaanib ah waxaana dhigtaan ardayda ka imaado banaanka marka su-aasheedu waxay tahay maadaama ardaydeena soomaalida ah iskuulka waqtiga ay ku qaadanaan ay yar tahay 5 hours subaxiisa u kala hal saac ilaa iyo 6 saac ay kasoo baxayaan see loo dhigi karaa luuqadda ingiriishka ha bartaan يعني لو بري كرا environment إسامين سو إنسان كهلين دتك أولو لغة إنجليش كا. أوكي. لا أنا ما أعرفين أرتضى ما وادي ما علينا يا إن أنا كل رأي مرة ما جوا مع الصلاة runtii waxaan rabaa inaan horta waxaan ka aragnay inaan horta hal ra'yi oo nubay oo jiro ah sanadka foundation-ka ah anaga markii aan wax baranaynay anaga waxaan ardayda jaamacadda Simad ka timid waxaan leeyahay foundation marka foundation-ka waxaan ku baranay luuqadaha wax meesha ay nagu taageereen waa luuqadaha badan aan ka helnay xilligii aan marinay foundation-ka fursad anagu aan uga duwanay ardayda Soomaaliyeed oo jaamacadda Simad aan ka helnay taasay ahayd waxaan kaloo inta akirinaa in la xoojiyo luuqadda ingiliishka ah in ardayda dugsiga sare la xoojiyo su-aashu haddaba waxay tahay ma jiraa qorshe ah in xoogga la saaro in luuqadda koowaad laga dhigo carabiga oo carabiga la xoojiyo iyo labaadna laga dhigo ingiliishka ma jiraa qorshahaas magacaygu waa Nasayba anigu runtii dadka u ololaya baan ahay tayada waxbarashada dugsiyada hoose ee primary-ga waxaan isleeyahay suurtagal ma tahay intaan iska dhaafno in manhaj sare iyo waxaas mataqaana dugsiyada sare ka dhigno Soomaaliya in primary-ga xadaanada ilmuhu markuu soo gaaro lixaad oo kale intaas in luqadda Soomaaliga lagu baro sidoo u barto qoraalkeeda iyo akhriskeeda
sidoo kale wixii ka sarreeya galaaska lixaad ma suurtagal ma noqon kartaa in laga dhigo ilaa secondary in English laga dhigo ardayga sidoo kale loo raaciyo xirfado intii maadooyin tirada ka batay loo dhigi lahaa oo vocation ama technical mataqaana skills loo sameeyo marka anu waxaan isdhihi karaa labadaas sidee u suurtoobaysaa inay israacdo aragtidiina maasantiin waxaan isleeyahay ma jiraa qorshe waxaan aniga aad isleeyahay oo af carabiga lagu xoojinayo ma jiraa waxa way af Soomaaligii ayaanba xoogsanayn yani weli aan xooganayn oo ogtahay xafiisyada waxa lagu shaqeeyo iyo sida ay tahay hadda waxaana loo sheegay gudoomiye black wuxuu noo sheegay xataa website-yadooda inay af Soomaaligii aysan qorayn marka carabi iska badaaba meel kale uu jiraa marka waxay nooga baahan tahay dhammaan siyaasaddaas ee lagu xoojin lahaa waa wax hawl oo noo taal laakiin ma aha waxaan sheegana inaan ka dhignay waa waxaan rumaysannahay kuna dhaqanno in laga dhigo waa mahadsantiin waxa loo nacay waa iska caddahay sababtoo ah macalinka dugsiga sare ama dugsiga hoose dhexe dhiga ardaygu indhuhu ku hayaa macalin daalan dhar qurux badan aan sidan lugeeya fasalba fasal isaga gudba bac yar wax kugu wata waayo marka macalinku uu fiirina wuxuu leeyahay markaad hadhow heer gaarto haddaad jaamacad gaarto maxaad baranaysa markii loo sheego kulliyadda waxbarashada wuxuu soo xasuusanaa macalinkiisa ee duruubtii ka muuqatay marka wuxuu leeyahay macalinkii kale inaan noqdo ma rabee niyo wax kale aan barto markii hadhow jaamacadda uu soo dhameeyana fursadda keliya jirta waa macalinimo oo macalinimo haddana la rabaa marka wuxuu leeyahay ku sii sug intaad wax kale ka helaysid macalinkaasi ahow marka inta dadka Soomaalida ah ay macalinka ka ixtiraamhayaan mushaar fiican laga siinayo nolol fiican uu ka helayo oo noqdo ninka ugu qadarinta badan bulshada dabcan macallimiinta dugsiyada quraanka waa la tixgelin jiray laakiin kuwan dugsiyada ayaan aad loo tixgelin marka ayagana in lagu soo daro waxbarashadeena iyo horumarkeennaba meel ay gaarayaan mana yani waxaan jeclaan lahaa wax yar inaan ka bidhaamiyo arrinka manhajka horta arrin yaroo aan ilooba ayaa jirta oo ku saabsan muhiimadda ay leedahay in la helo afka tilmaamaha oo dadkeena naafada ah dhagooyaasha in la helo yani waa siyaasadda luqadda oo muhiimka ayay ka mid tahay taas horta waa meel oo afka tilmaamaha oo Soomaaliyeysan taasi horta waa muhiim tan kale marka laga hadlayo manhajka xayndaabkiisa iyo miradalkiisa ayaa muhiim ah ma ahane ma jiriyo manhaj marka la qorayo ugu horeeya syllabuskiisa iyo buwaagtiisu ay dhammaystiran yihiin ma jiriyo waxa waaye si ayuu ku bilowdaa juhdi ayuu ka bilaawadaa kadibna waa la hagaajiyaa aniga caruurtayda ayaa dhigata oo manhajka laftiisa dhigata buwaagtana aad ayaan uga warhayaa wax in lagu kordhiyo ayay u baahan yihiin laakiinse miradalka iyo manhajka iyo xayndaabku waa wanaagsan yahay aad iyo aad waa wanaagsan yahay marka la leeyahana waa arrin nisbi ah yani awal ma aanaan haysan manhaj aan anagu leenaha ma haysan hadda manhaj aan anagu leenaha ayaan haysan waa mahadsantihiin bismillah midii ninkii gaalkacyaan ka hadlahayayo Soomaalida guud ahaan macalinimo ma rabto misaal yar haddaan soo qaato Garissa College baa ku yaala 1,000 macallin baa loo baahday in Soomaalida loo sameeyo NFD degta 1,000 macallin waxaa soo dalbatay 50 950kii waxaa looga yimid Kenyaankii kale u yimid halka maxaa kaaga muuqda markii ay dhamaatay koorsiyadoodii dhamaatayna dhowrkii sano la qaadan lahaa uu dhamaaday 50kii Soomaaliyeed kareerkoodii bedesheen wax kale doonteen waxa loogu talagalayna waxay ahayd inay maxay ahayd dhulkooda ay macallimiin ka noqdaan maalin walba waa laga qayliyaa macallin baa looga keenaa dad kale loogu keenaa halka waxaad ka fahmaysaa kuliyaadka waxaan ugu sameynay dhowr goor in ardada lacag la'aan wax ku baro ardadii lacag la'aanta labadii dowr ugu horeysay barata jaamacada horta aadeen jaamacada wax ka dhigeenba kuwii ka dambeeyayna waaba diideen
waayo ardaygii isku fasalka ahaayeen ee jaamacad faculties kala aaday ee shaqada kala helay ayaa asagii wuxuu siinayaa shaxaadkii asagii ayaa baabuurkii ku qaadayo halkaa culays baa ka jiro taa ayada horta macallinimadii dadkii si ay ugu soo dhiiran lahaayeen baa la rabaa wasaaradda hadda dadaasho 3,000 oo macallin ay qaadatay macallinkii jaamiciga ay qaadatay dowladdu waxay tiri mushaarka macallinka ee qofka jaamiciga waa 700 ayadana hooyo malaysia ay ku sameysay waxay tiri 320 aan siinayna dan already waxa way macallinka haaf uu sii noqday marka haddaanan annaga macallimiinta annada qadarinin sidaas baan mataqaanaa ay hawshanadu saan doona u hirgeli mayso taas halkaasaan ka leeyahay su-aal kale jirta aan ka jawaabi lahaa laakiin waa iga dhuntay luuqadda ingiliishka iyo bay-ada qofka uu ku nool yahay dabcan hadiyatana waa sheegay waa culays jira laakiin waxaan isleeyahay haddii qofka uu yahay qof raba inuu barto wax badanoo ku caawinayaa jira manhajka iyo qaabka loo diyaariyo iyo ardayga sida looga shaqaysiiyo iyo technologyga sida looga faa'iidaysto iyo rabitaanka qofka laftigiisa inuu rabo qofkii maadaama dalkii uu joogo ama magaaladii joogo wax ku baranayo bulshada uu la dhaqmayo ay Soomaali tahay waa ku qasban yahay laakiin haddana taas meesha kama saarayso inuusan qofkii baran karin way caawin lahayd haddii bii'ada uu joogo ay tahay bii'ad wada dad ajaaniba ay joogaan oo wax kale uusan ku wada xiriiraynin laakiin haddana hadduu dadaalo oo rabitaan la yimaado manhajkuna marka hore saxan yahay iyo macallinka waxaan isleeyahay waa arrin hirgeli karta khaasatan markuu qofku heer jaamacadeed soo gaaro oo muhiimadda luuqaddu ay leedahayna ogaado agabkii uu u baahnaana uu haysto intaasaan kusoo koobaya maamulka iskoolka macalinku rabo iskaga qorana uu leeyahay taas maamulka cilad uu leeyahay waaye xildhibaanka waa tuu sharaxayay iskoolaadka ugu wanaagsan macallimiinta ugu wanaagsan ay qaadanayaan cilmi baaristaasaa runtii noo kala cadaynayso macallin ku ciyaaraya iskoolkiisa waay hadduu qofku rabo uu iskaga qorayo midda kaleeto waa laga jawaabay dadki inay waxbarashadii bartaan ma rabaan marka qof engineering soo bartay inuu dhaho xisaab laygu qoro waxa way taasaa keenayso markuu shaqo waayo laakiin in la helo tababar macallimiin oo 1 sano 6 bilood loo diyaariyo dadkaas in dugsiga hoose haddii ay dhiga karaan loo tababaro taasoo kaleeta waxay noqon kartaa xal bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa umayma cabdi naasir sanadkii lasoo dhaafay ka qalin jibisay jaamacadda jamhuuriya faculty of medicine rectorkaygaa jooga asagana injineer maxamuud waa salaamayaa isla asagaa rabay inaan su-aal weydiiyo oo ahayd aniga waxaa taageersanaa dooda doctor daahir oo ahayd qofka annaga aa soo saarayno maadaama annaga luuqadeena aysan ahayn luuqad cilmiyeed maadaama dad muslimiinana aan nahay dee dooranaa 2 joys ay haysan oo ah English ama kee dooranaa marka dood ahayd aan doorano luuqada carabi maadaama dad muslimiin aan nahay qofka muslimkaana basigiisa laga rabo inuu basic islaami oo qof muslim oo waxaas kala yaqaan uu yahay aan doorano marka injineer maxamuud wuxuu dhahay maadaama oo adduunka English u guuray annagana hadeertaan u soconnoba inaa East Africa ku biirno waxay ku biishuwanaysaa inaan luuqada English ku biiri doono marka maxay macno soo kordhinaysaa haddii aan soo saarno professor luuqada Englishka iyo researcher badan iyo wax badan yaqaano laakiin dhaqankiisii iyo diintiisii wax badan ka aqoonin waa halkii hadraawi uu ka dhahay iskuulladu waa dayayn damiinnimaday dhigaan dartay uma soo lugo'in duruustu falkay taqiin dictor cada way sideen dibrii nacbay sideen xaq bay garbaduubayeen diintay gibil saarayeen waxay diyayeen amuur dhibteedu dib iigu taal magacayga axmed xuseen daahir baa la yihahdaa waxaan ka socdaa jaamacatu gada international university oo ku taala degmada beled xaawe ee gobolka gada aad baa u mahadsan tihiin macadka heritage iyo jaamacadda city waxaan isleeyahay luuqadda soomaaliga hadalku waa dan iyo daalis dowlad baa ilaalin karta dadka shacabku wixii dowladda ay u jidaysa
ayay raaci karaan laakiin inteena qof walba meel buu ka imaada meel buu heenayaa marka dawladdu sanad bay hadda nagu dartay oo maaragtay la qaatay marka manhajka in laga shaqeeyo oo dawladdu ay iska xil saarto si maaragtay jiritaankeena qowmiyadeed uu u sii jira waa muhiim luqadaha kale waa loo baahan yahay jacayl iyo la'aan ingiriiska waa ku khasban tahay sababtoo tahay hadda meeshaan aan joognay intii lasoo bandhigay 90% ingiriis buu ku socday marka qofka ingiriis aqoon wuxuu noqonayaa qof dhagoolo iska fadhiya marka asaguna asaga isku khasbay dadka inay bartaan haddii aad diyaarad raacadood meel aada waxaad ku khasban tahay xataa haddaad carabi taqaana kuwii carabta markaa u tagta ingiriis bay kaa rabaan isagoo carabi haddii carabi kula hadasho waa kaa wareegsanayaa marka aad baa u mahadsan tihiin runtii doodahan iyo tayada in la sii wada aad bay u taraysaa dawladduna waxaan ka codsaynaa dadka luuqadda waxaa ku xiran jiritaankooda ummadeed hadday luuqaddu dhinto ummaddan waa dhubaysaa waa mahadsantihiin بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى آية سورة الروم آية لواتر إلى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك الآيات للعالمين وحشيغا مرك إنك القدسان تحي وبايلينغوال أوجرو أدونك تضبكن أولو قضوت أيا جرتا مرك هذا أصول نقضو يور مهمة أي لقد اللذا يسيد السواء في الجناية مرك أبو الرئيسة ريبوركي يونايتد نيشن كأساس تكون إسرائيل بقول كونتر يسد حدي وحشيغي سا إن لقد هو أي مهم أبتاي psychologically educationally and socially inay u tahay tan kale xeerarka caalamiga ah xeerka caruurta United Nations 1989 in November article 30 wuxuu leeyahay qofka inuu xaq u leeyahay inuu barto luqadiisa uu barto tan kale muhiimka ah marka waxay tahay oo goorma la baraa isee loo baraa ay tahay waxay tahay metalinguistic awareness waxa la yiraahdo waqtiga uu canuga ku baraarugayo maxay ahayd luqadda siday u shaqeyso waa 8 sanadood marka professor Cummins nin la yiraahdo oo Jim Cummins la yiraahdo Canadian ayaa wuxuu ka sameeyay waxaas maxay baaritaan hypothesis-kiisa wuxuu yahay haddii canuga uu luqadiisii hooy marka hore uu barto oo isagoo haysta uu barto luqad kale waxay u noqonaysaa advantage muhiimaday u noqonaysaa inuu wax ku barto laakiin haddii luqadiisii hooyo uu dhumiyo oo isku dayo inuu luqadiisii labaad oo isku dayo inuu barto waxay noqonaysaa disadvantage ayay u noqonaysaa marka theesihaygii doctorate-ka arrintaas ayuu ku saabsanaa ee Bristol markaan ark ilmihii Soomaalida oo maxay Englishka hoos ugu dhacay laakiin xisaabta si fiican u sameynaayo inaan ilmihii Soomaalida luqadda Soomaaliga intaan baray aan maxay ahayd grammarkii Englishka grammarkii Soomaaliga aan isla baray iyaga iyo waalidkood oo heer waxay gaareen ay jaamacadda inay tagaan ay ku sameeyaan presentation Soomaali ay ku sameeyaan oo ay aad ula dhaceen dadkii meesha joogay salaamu calaykum السلام عليكم مرة وينا كوسي دهو مجاعي وحي عبد الرحمن وهلي وحكم إذا أردت سوق نجيبسي جامعة سيتي إن شاء الله يرسل جدي لسوق بندقة هاي ميلا بدنا تابتين جابس كجرو منهج كينو حبر شذا أي كم هاي critical thinking كإنه سن منهج كين كعاونين أرض إنه critical thinking كيسة أو هجاجو لو قدنا قيب وين كتهاي سوى ذوقنا هاي أو أقوياء هندينا إنه ستيل مامين marka waxaa rabay xildhibaanka inaa weydiiyo researchkiisana meelo badan oo ardayga tayadiisa tilmaamayna uu ku highlight gareeyay si luqadda ardayga loo hagaajiyo arrintan cilada ahna ardayga inuu Soomaaligana wax ku qori karin Englishkana wax ku qori karin ee tahay caqabad badan oo dad badan oo creativity leh dhalinyaro badan oo creativity leh ee u noqotay yani xirxiro oonan waxyaabo badan qabsanin si taas loogu gudbo ma jira talooyin ama dadaalo la rabo in manhajkii waxbarashada dugsiga dhexe iyo dugsiga hoose loogu soo darayo tusaale xiisooyin wax aqriska xiisooyin aqris ama qoraal curin oo kale oo ardayga leeyahay buugta soo aqri aan ognahay aqriska inuu qayb weyn ka yahay critical thinking-ka iyo qofka falsafadiisa iyo inay jiheyso mideyso yani fikirkiisa I think inaa su'aasha soo koobay okay xabiib waa mahadsan tahay waxaan rabaa hal su'aal inaan weydiiyo Dr. Brise waxaan weydiinaa hadda manhajka Soomaali waaye waa fiican yahay liiri laakiin problemka ugu weyn ardayda wajahayna waxa kamid ah in ardayga markuu buugan Soomaali akhristo uu reference helayay English dil ugu dhigo intaas oo kun oo reference uu helo buug kale oo English ku qoran laakiin buuga Soomaaliga ama ardayga akhristo buug kale oo reference uu qalam meeshaan warka qalas du fahmo bartas ku waqti amina hantaabka waa soo xirmo waaye haddaan u laabto luqadda la qaadanaa waaye ma ahan Soomaali
aniga nin miyi ku dhashan ahay Soomaaliga aadan u tixgeliyaa inuu dabar go'an aadan ka soo horjeedaa laakiin caqabada jirta waxay tahay in la fahmo Soomaaliga in asortkooda dib loogu laabto la shandheeyo ardayga min class 1 ilaa iyo jaamacadda ilaa baskoroji oo la socdo waa gooni laakiin si xog loo saaro laakiin in Carabi la raaco iyo English la raaco taas waxay maanaa hadba manhajka u fududaanayo English la raacona diinta loo guurana ma aha laakiin su'aasha weydiina waxay tahay saal laga yeelaa referensiga ardayga inuu sahelin buuggii Soomaaliga ahay oo hal buug Soomaali bis ku qoran oo ku kooban yahay halkaas maxaa u ahaayaan Dr. Brice weydiina aad u mahadsantiin waxay ku xiran doontaa ardayga la soo saaraya maxaa loo soo saaraya waxaa la soo saarayaa qof traditional oo la rabo inuu la yuuraro waardiye ka noqdo dhaxalka awoowe bas waxaa la soo saarayaa qof la rabo in adduunkan speedka ku socda competition ka galo oo dalkan inuu development helo anigan Carabi baa ii horreeyay xorriyad ma dareemin maalintan Ingiriiska ka xaqabeelay baan dareemay inaan qof xor ahay waxaan rabnaa af Soomaaliga wuxuu ka gudbi lahayd geedihii wili waxaan dib u jaleecay markaan hadda Ingiriiska ka soo dhamaado af Soomaaliga aan dib u akhriyo kutubtii la qoray buugaagtii af Soomaaliga laga qoray af Soomaaligan akhriyaa wuxuu ka dhamaalay gabaygan dhageystaa wuxuu ka dhamaalay geed iyo geel iyo maxaan ku yiraahdaa buur iyo faras aqoon social science ka cabiraysa oo sawiraysa hayaanka bulshada meesha u socoto oo imagination ama khayaal abuuri karta qofka Soomaaliga haddii ahayd literature haddii ahayd novel ama haalaheed kutub cilmi baaris oo series develop garaynayso af Soomaali ku qoran ma arag marka waxaan rabnaa dhaxalkaas inaan waardiye ka noqono ama waxaan rabnaa adduunka inaan qayb ka noqono su'aashan qawaano taa weeyaan marka af Soomaaligu iyo diintan in la isku xirin diinta dad English ku hadlo first language English baa diinta baro khubaro ah oo macallimiin oo jaamacado dhigaa jiro Hamza Yusuf iyo Cabdixakiim Muraad qayb ka mid yihiin marka inaad diin laawataa ma macnaheedu inaad af Soomaali ku hadlin marka af Soomaaliga waa la baran karaa laakiin af Soomaaligu ma yahay af aqooneed af dad soo saari kara aqoon abuuri kara wax lagu soo saari karo final commentiga dadkii English wax ku bari jiray intaan Soomaaliga loo bedelin Soomaalida ahay kutub fiican bay qoreen buugaag badan oo English qoreen tan waa criticality bay joogaan oo la jeedaa 75 wixii ka dambeeyay dadka af Soomaaliga wax ku bartay af Soomaaliga markii loo bedelay waxay qoreen ilaa hadda ma heno meaningful marka taa macnaheedu Soomaaliga wax maalintii la bilaabo wax lagu bartaa aqoonta Soomaali hoos u dhacday waxaan rabaa marka hore inaan su'aal aan weydiisan aan ka jawaabo sidoo kalena su'aal aan ku soo celiyo su'aasha waxaa waaye in ardayda jaamacadaha ka soo baxdaa aysan qori karin email arrintaas waa run sababtana ma taqaanaa sababta aan lana barin macallimiinteen idinka ah professoradeen idinka ahna miina barin saa ku baranaynaa marka maalinka jaamacadda ka soo baxay weligii haddaanan maqal marka iskuulkii iyo jaamacadda dhigana haddaan maqal emailka saasaa loo qoraa xaggaas saana lagu qoraa kansaasaa lagu qoraa saan ku qoraa email ilaa ilmihii barine adaa macallinkayga marka su-aasha aan soo celinayo waxaa waaye barofesoorada iyo macallimiinta iyo wasaaradda iyo dadka ku shaqa leh inay tayayaan waxbarashada maxay u diyaariyeen maxay ka sameeyeen ani inay ibaraan shakhsiyan sida emailka u qori lahaa ma sameeyeen macnaha arrintaas xaggee u maraysaa su-aasheeda saas waa aad u mahadsantihin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبدأ ما سنتين سيتي جاي مركز روايدين مالتي روايدين بهاد نقلنا إيو تيج كوا أربعة مرة وين يرتا تابتو شيء جوه رأي واحد كل شيء إنه كل إسلاف قرناي إن قف ولا بأفكي سكوبات ويهاي شيء كوبات إن الله وحكوا قيب سنة يو تسوى إنه كو قف لو إن طال هاي ستار ربع مركز قف كأن طال هاي سنة ده يسوي مركز وحو هاي ساقون كلو أين قرناين waxaa la yidhaahdaa nimankan baa jirta la yidhaahdo haddii aad rabto dal inaad disho haddii rabto inaad dal disho afkaa laga dilaa taasina waa qaacido caam ah waa in la walaba baaraa dalka la rabo in la dilo afkiisumaa la dilaa waa shayga saddexaad halkan waxaa idinku qoran oo aad aragneen UNESCO researchkeedii ay samaysay 2003 waxay ku qoran tahay dalalka adduunka 7,000 af baa laga hadlaa sidii hadda laynoo sheegayay 7,000 dal in ka yar 20ka dal ee koobaad ee ay tirsan tahay China iyo dalalka waaweyn ka mid ah mooyaane inta kale oo dhan qarniga way dhamaanayaan kulligood waa la dilayaa af Soomaaliguna waa kow marka wuu qoran yahay marka
waa la dilayaa waana ummad markii la dilana saasaa loogu talagalay in la sameeyo marka haddaad rabtaan in afkeenu dhinto sida aynu hadda u wadnaha loo wado aan soo yara socdo laba waxaan idiin taabanayaa tusaale anigu wasiir baan ka ahaa xag puntland waxaan tusaale ka soo qaaday jaamacad baanu waxaanu ka qabanay nin professora yimid ereyga exactly aad soo qaadana englishka hadda critical thinking buu ka hadlayay professor weyn buu ah wuu hadlay arday baa timid badan oo ka baxaya ku ardaydii markii uu dhammaaday ninkani hadalkiisii markuu dhammaystay waxaa la halo hal weydiiyo qofkii doonayaana ha hadlo oo de wixii ra'yi uu ka dhiibanayo ha dhiibto ma malaynaysaa hal arday oo ku hadla luqaddii afka ingiriisda ah ee lagu soo baranayay hal ku weydiiya ama ku bixiya faallo la waaya waa wax ballaaran oo weliba aan aad ugu kalsoonnahay aqoon ka taga halkaas imtixaankii ingilishka iyadoo la saxayo professor soo gaabi imtixaankii ingilishka iyadoo la saxayo dugsiga sare ayaa waxaan soo galay qoladii waxaan macallinkii waxaan weydiiyey macallimiintii waxaan idhi ma jiraa macallin idinka idinka mida soo ingilish ma wada dhigtaan haa ma jiraa macallin idinka mida oo kalaaska markuu ku dhex jiro ingilish ku hadla yaana soomaali ku hadlin maya baa la yidhi hal qof waa la waayay taasi waxay ku inaan caruurteennii aanay ingilish aqoonin hadalka igu dambeeya waxa weeye luqadahan faraha badan aad doonaysaan caruurta in la baro annagu ardayda af soomaaligii baan wax ku soo barnay dugsiga sarena waa kaga saarnay natiijadii ugu fiicnayd waxayda ardaydii ugu wanaagsanayd baa ka baxday iyagoo af soomaali ku soo bartay afafka kala dunyada markii la qabsan iyagaa ugu fiicnaa laakiin markaad af soomaali ugu dhigto fasalka afraad ama ka lixaad oo aad ingilish ugu dhigto fasalka ilaa 12 oo aad jaamacaddii ugu dhigto af kale oo saddexaad natiijada aad ka filaysaa maxay tahay afku haddaad ereyga aan isticmaalay way english proficiency haddaynu raadino warkooba gaaban waad doonaysaan in luqadan aan lagu noqdo xariif lagu noqdo haddaad doonaysaan ma jiri karto haddii aan ardayga af soomaaligiisa la dhisin markuu jaamacad gaadhana wixii la doonaya aan loo wadin laakiin jaamacaddana af soomaali waa lagu dhigi karaa ogaado heritage ereyga ugu dambeeya waxa weeye manhajkeenna waxaa ka maqan hal shay waa naxwaha keliya ka maqan naxwihiina wakaa kuwa kaloo cabdalla mansuur miduu qoray iyo kan iyo way jiraan bugaag fiican baa jirta aniga cabdalla mansuur calaa kulli xaal waan wada shaqayn jirnay ogaada waa muddo dheer ilaa 40 sannadood baa dad wada shaqaynayaan nahay bugi wakaa waxaan ugu deeqayaa muxuu ahaa madaxweynaha waan siiyey prime ministerkana waan siiyey guddoomiyaasha baarlamaanadana waan siiyey waxaan uga dan leeyahay jaamacada waa la siida waxaan uga dan lahaa hal shay inay af soomaaliga u soo jeestaan oo wax ku bartaan maantana maadaama dood cilmi aynu joogno professor afyar oo saaxiibkay waxaan ku wareejinayaa idinkuna waa kaasi af soomaaliga dhinaciina ka ilaaliya dhimashada ka ilaaliya halkan ay ku qoran tahay inuu af soomaaligu dhimanayo qof walba ugu talagal asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan oran lahaa aad bay dadka u soo jeedinayeen af soomaaliga hadda professorkii ugu dambeeyeyna inuu muhiim yahay wakhtiga ugu horeeya inuu muhiim yahay mar kastana waxaan leeyahay qofka afka soomaaliga wax ku barta meel weyn waa gaari karaa oo daraasaadka dhan saasay isu raaceen waxaan hadalkaa ula jeedaa doctor lunge markuu ka hadlayay af soomaaliga af soomaali haddaad wax ku barato aad baad mataqaanaa u noqon kartaa haddaad af carabi ku baratana sidoo kale aafaaqdaada aaday u furmi kartaa ma aha keliya ingiliishka yaana waxaan ka hadlayna keliya ingiliishka ma aha laakiin afkaaga iyo afka carabiga haddaad yacni xoojiso wax weyn baa la gaaraya waa mahadsan soomaalida waa la jecel yahay af soomaaligana waa la jecel yahay dadkaana waa dad wada wadaniyiina laakiin waxaa laga hadlayaa adduunyadu way isbedelaysaa wayna socotaa marxalado badan baa la soo maray
waxaa jira dad luuqado ay ku hadli jireen inay iska tiiriyeen luuqado cusub oo isla luuqadoodii ah ku hadla annaga waxaan ka hadlaynaa soomaalida maanta joogta si ay ula jaan qaado tartanka dhaqaalaha iyo teknolojiyada iyo sayniska socota maxaa la gudboon inay wax ku bartaan annaga waxaan soo jeedinaynaa in ama afka carabiga lagu barto ama afka ingiriisiga lagu barto soomaali maalgelin looma hayo dad aqoonteeda u loo hadda wax ku dhigi karana ma joogaan marka jiilasha soo socota waa in mustaqbalkooda laga fakero mahadsantii بسم الله الرحمن الرحيم af soomaaliga anigu waxbaan ku soo bartay wax ka ba'sanna ma jiraan yacni ragga haddii aan fiiriyo meeshaan cirada lena waxaan u malaynaa iyaguna inay af soomaaliga wax ku soo barteen marka reference badanna uma baahna runtii arday yaroo maaragtay primary ama maaragtay dugsi dhexe ama dugsi hoose reference badan uma baahna laakiin siyaasadda luqadda ee dowladda waa inay ka mid ahaataa in la badiyo qoraalka la badiyo oo la soo saaro bugaag badan la soo saaro taasi waa meel hal arrin oo aad muhiim u ah ayaa jira inaan la isku qaldin luqadda rasmiga ah ama luqadda qaranka iyo luqadaha danaha kale ee maaragtay horumarka waddanka iyo dadku ay qasbeen labadaas inaan la isku qaldin luqadaada qaran iyo luqadda rasmiga ah mushkilad ayaa waxaa ka taagan gaar ahaan af soomaaliga oo keliya ma ahane carabigana mushkilad ayaa ka taagan carabiga aad ayaa loo gacan bidixeeyey mana loola dhaqmo sida luqad rasmiya waa luqad rasmiya ayaa noogu qaran inay tahay maaragta dastuurka laakiin luqad rasmiya bay waxaa qeexdeedu tahay in shuruucdu ay iyadu ku qoran yihiin dowladdu ay iyadu wax ku maamusho yacni maaragtay documentationadu ay iyadu ku qoran yihiin taasina ma dhicin marka arrinkaas waa arrin sixid u baahan asalaamu calaykum بسم الله أنا waxaan leeyahay ardaydii waxaan ka mid ahaa luqadda ingiriiska xirtay ee aan soomaaliga ka hormartay hadda bariisoo kaleeto macnaha waxaan tusinaya inay ka da'weynaha soo baxaysa markaa ardaydii naga dambeysay ee luqadda soomaaliga wax ku baratay waxaanu su ahayn kaafiya kale dheeri way naga aqoon badnaayeen soomaaliga sidaas u fiicnaa runtii waan majeeran jiray anigu haddaan dhaha soomaali baan akrinaya anoo weliba macallin ahaa oo soomaali wax ku soo dhiga haddaana waan akrinaya dhaha weli waa kicikicinayaa laakiin ardayga ku soo dhigtay soomaaliga ya fluently buu wuxuu akhrinayaa si moogtahay aan kala joogsi lahayn uu akhrinayaa waana igaga aqoon fiicnaayeen waxyaabihii aan grade 6ka ku qaadanayna waxay ku qaateen grade 3 maxaa keenay capacity-ga u sahlanaaday arrinta halkaa markaa fiiriso aad bay waxaan u leeyahay way nagaga fiicnaayeen hadda markii la soo saaray manhajkan cusub ilmaa ii joogo kuwana waxa ay carabiga watay u yimaadeen kuwana bilow bay ahaayeen ardayga grade 2ga ahaa ayaa waxaa la yidhi qoys waa maxay war waa aabe iyo hooyo iyo ilmaha la joogo yidhi kuwiina waxaa yidhi family ka warrama ama usra ka warrama way ii sharxi waayeen yaa iskale luqadda soomaaliga waxa weeyaan waa dhaqankayagii wax fahamkana markaas weeye ardaygii soomaaliga ahaa ee annaga naga dambeeyey ee soo baxay markii jaamacadaha la isla tegayna dadkay ugu fiicnaayeen waxaan xasuustaa ragga ahaa ee baxay ee sweden iyo meelahaa tegey buugtii bay soo doonteen waagaa la dhigayey ooy dhaheen war waxaan u dhigna ma leh halkan waxaa fadhiyo safiirkii raashi noo fadhiyey macallin horan ahaa 1960kii July 1 macallin noqday caddaduqu waa kaa waa fadhiya soo maaha weydiiya wuu noo yimid wuxuu yidhi war Canada ilmahaygu jiraan waxaan aad dhigteenna waan rabnaa buugtii buu naga qaatay war waxba aad tihiina habasliidina luqa aydan lahayna haddaba ordina cid ku hormartay ma laha kaljar nin kaleetaad qaadanaysaa kaljarkaaga qaadan maysid taada wax ka mira dhali meelna ka gaar anigu taasaan arkayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu su-aasha la xiriirtay intaan rimaxkii soo xirin luqadda carabiga la weydiiyey
waxaa jira waxna waa afka waxbarashada oo maadooyinka dhan ay ku baxaan waxna waa maada ahaan marka waxaan u malaynayaa haddii xataa soomaali wax lagu dhiganayo ama ingiliish lagu dhiganayo nidaamku waa ku jirtaa in maada ahaan ardayga loo baro carabiga micnaheedu maaha marka in carabiga laga tegayo anigu carabiga wax ku soo bartay ilaa dugsigaygii sare mushkilana kuma qabin maxaan ku rahdaa markii aan ingiliis iyo u wareegay taa intaasaan ka leeyahay waxaan kusoo gabagabaynaa inkastoo doodeennu ay luuqadda iyo siyaasadda luuqadda la xiriirtay waxaan u malaynayaa dhibkanna haysta oo inta badan arrinta kusoo laalaabanayso waa tayaday kusoo laabanaysaa luuqaddu waa mediumkii aan wax lagu gudbin lahaa laakiin waxaanu tayo ma leeyihiin ardayga aan ka sheekaynayno mushkiladda curinta qaba ama luuqaddii soomaaliga aan wax ku curin karin ama luuqaddii ingiliishka aan wax ku qori karin ama carabigii dhib ku qaba maadooyin kale dhib ku qaba arrintu waxay usoo urureysaan isleeyahay arrin la xiriirta tayada waxbarashada ama hoose ha noqoto ama dhexe ha noqoto ama sare ha noqoto luuqadduna waa dee janalkii wax lagu gudbin lahaa keliya waa mahadsantiin aad aa mahadsantihiin anigi waxaan kusoo gabagabeynayaa afka soomaaliga asigaa u baahan runtii in la horumarin u baahan asigaa gacan ku qabasho u baahan marka macaahidda iyo intitiyada gacanta ku hayaan luuqadaha inay horumariyaan inay aad uga shaqeeyaan midda labaad erey bixinada la sameynayo ma jiraanbo marka erey bixinada aaday u liitaan marka erey la bixinayana waxaa siduu ustaadka ka dhawaajiyey lala aadaa geela iyo ereyo 100 sano ka hor la isticmaali jiray in loo bixiyo erey teknolojiyadoo modern loo baahan yahay in hore loo socdo marka marmarka qaar waxaa loo baahan yahay luuqadaha kaleeto inaan awood u leenahay inaan wax ka soo qaadano markii teknolojiyada iyo sayniska iyo aan ka hadlayno dhinacaas gaar ahaan si aan ugu fududeyno dadka aan wax barayno asalaamu calaykum waxaa malamasan yahay banalka waxaa isleeyahay mararka qaarkood maanta dhan waxaan la yaabanaa af soomaaliga ma english ka fudud ama af carabi ka fudud horta soomaali laga hadlaya shayga mugda waxaa laga yaaba qof kasta wixii professor mansuur aha waaye ma unuka isku hooyo ahday waay mugda aniga waxaa xasuustaa marka waxaan rabaa wax yar 99 معلم عربي ما شرحها مركا هذا أمر لا يستهان واي هرتا معلم كيف شجع وحي أفصام عربي حتى مركا دجناي واللقبينا إنجليش مركا واللقبين مركا ما يصير أفصام على البرنامج بس كنت لقى أفصام على جماعة إنجليش مركا دجاه حتى وكجرا مركا هذا أمر لا يستهان وشرحها مركا سحمر وحي جوجا أفر بالشربل بورا كيني مركا هذا كلي أمر وأرين لا يستهان على بعض سنكرين أسبوعا وحارادنا حتى أنا دغاسن كرين أنا دغاسن كرين markii dambe wax oo macallin ah weydiin wax yar dadkeena weydiisana in lagu qoslo oo Soomaali ma tiinay waa ka xishana mugda lawrid carabi xasuusto oo wada ku qornaa jiri carabiga waa yustahaanu sahal macallinka hadda wuu joogaa saaxiibana waxaan ahniyo horta nafsaha Soomaaliga marka la dhigaa ma aragtay marka qaar marka ka waran أنا باجي كسوق الدبور كإيمانا الصومالي جالس أصلاً الدبور نابو إنجلش كان واحد من دامه اسمه ما فهمت أنا مركب ما هو وجهه ومدة الصومالي ما لقول لي جالس لقول لي ما إيه وحمهم إيه هرت الصومالي أو كاجي هاي قرين كاين ما يروح أو الإسلام أو معنا اللي هرتهمه ورنا بتو تونس كي واحد ساعة وصدار واحد من أكلنا ودك قار خدوا حليا وندرس مسكلا معناها الصومال مكسر جدا تونس كي لو ترى جالس يجري لجيبه هذا مثلا ده فيرسين توم أند جيري قالوا كسر فيرسنا توم أند جيري عشرة كجرو واحد بدنا كجرو عيالك تتلا ورستي ويقولها أب أنا بوليسنا هذا ربا كلها بوليس إنه كان ماشي كيناي مركا أنا وحسلاي هاي وحنا هذا جهد اللي قلنا هلقليو لكن أرنت أو لانجويج بوليسية ويسعنتو أنت محمد وحا مركا حبوا أتلموا في الداي أنت لو شقينا حفصي دولة نفسها هذا أنا كان جوجنو مركا قاركوت qofkii Soomaali bas yaqaano kan wax kale yaqaan ka gadhow waxa kale la dhaha ilan nolosha ku xiran wax badan ku xiran
marka dood socon doonto waaye dood hadda soo xirmaysa maaha waa maqsantahay fardiga maqsantahay qalab wanaagsan kuma daaheeno waajib aan ugu jiro anagoo dhan salaadii casar la joogaa waan u mahadcelinayaa jaamacadda city iyo macadka heritage waxaad moodaa shalayna waan ka afeeftay arrintaas waan sheegay in mawaadiicda waxbarashada ku saabsan ay u baahan yihiin waqti anaga ka wasaarad ahaan 5 maalmood aan halkan fadhinay 18 qodob ku dhawaado waan soo saarnay oo communique ah fulintoodana ma ahan wax sanad iyo 2 sano iyo 3 sano ay qaadanayso laakiin waxaa naga go'an inay fulaan 18 kaas qodob siday u kala horeyso qaarkoodna haddaba fulintoodii waan ku dhaqaaqnay waxaa ugu horeysa tacliinta sare iyo waxyaabaha aan ka qabanay haddii ay tahay sharciga tacliinta sare si gaar ah in loo qoro arinta foundation yeerka arinta foundation yeerka dadka waxay moodeen wax isla markaas baraarug wasiirada ka yimid inuu ahaa laakiin ma ahayn 5 maalmood halkan aan fadhinay ka soo baxday aan usoo laabta marka mawaadiicda maanta laga hadlay iyo kan maanta luqadda u dambeeyaan rabo inaan barnaamijkan aan uga faa'iideysto inaan kusoo khatimo luqadda waxaan rabnaa inaan u kala saarno horta maxay noo tahay anaga ma national identity noo tahay luqadda maxaan u aragnaa waxa aan ka samaysanahay isirkeena mise waa wax la guurguura isbedelka caalamka ka dhacayo Soomaali haddaan nahay waxaan moodaa ereyga horumarka developmentiga inaan xoogaa ku yara lugnay stress aan ka qaadnay waxaan ahayn mar walba nala dhihi jiray waxaad ka mid tihiin wadamada under developedka ka mid tihiin ereyga kale aadka naloogu stress gareeyo naloogu dhibayna waxaa ka mid ahayd waad soo koraysaan marka xoogaa aan idinla kaftame waxaad moodaa koritaanka inaan dhahnay bal yaanan garguuranin istaagin socod baranne aan kacno aan wareegano 180 degree luqadda Soomaaliga markaan ka soo tago ka dawlad ahaan iyo qof mathalaya dawladda markaan ka soo tago aniga shakhsiyan iyo aragtideeda waxaan ka aaminsanahay meeshan ka unkan horta inay tahay hal midaan rabaa inaan iftiimiyo waayadan dambe waxaa lumaysa iska dhaafa luqadii dhaqankii baa lumaayo luqadana sabab u ah waxaad arkaysaa canug aanan abtirsan karin ilaa iyo awowgiisa 10aad aanan geen karin sababtu waxay tahay badankeen magacyada awowayaasheena magac Soomaali sax buu ahaa markii la gaaro jaamac inuu soo laabtaa laga yaabaa canugii dhibaatada kale aan xaafadaha ku aragnay dhamaanteena hooyooyin aan nahay caruurteeni hadda waxa ay marayaan 3 jirka inuu luqadii Englishka ku hadlo markaad af Soomaali kula hadashidna uu yiraahdo maxaa la dhahaa wax si un ku eego sababta maxay tahay xaaladahan aan la noolnahay buu canugeeni la nool yahay ma haysto xisad Soomaali ah ma haysto aaba ama hooyo afka Soomaaliga ama ugu heesa ama ugu sheekeeya ama xaalado taariikh uga sheekeeya ma haysto bulsho afka Soomaaliga aad u horumarisa anagu nala nool yahay isagii laftirkiisa doorbidahay markaan inuu luqado kala raadiyo tiknoolajiyadana saameyn ay leedahay xaqiiqatan marka waxaan ku soo koobayaa yaanan ku dhex lumin caalamkan anagoo luqadeeni gacanta ku haysanaan horumari karnaa horta wadamo badan oo horumaray aan kaga daysan karno horumarkaana jirta midna aan idin xusuusiyo 2 arrimood aan u baahanahay arinta koowaad waxa ay tahay wadankeeno dib u dhis galaya wax walba ereyga dib baa daba socota dib u dhis dib u qaabeen dib u hagaajin macnaheedu waa inagiyaan soo kabsanayna gudaha wadanka horta dhisiduu nooga baahan yahay midda labaadna caalamkan wuxuu nooga baahan yahay la qabsi marka waxaad ogaataan 2 mas'uuliyood iyo 2 effort baan rabnaa horta inaan wax ka qabano haddaan mas'uuliyiin nahay ama waxbarashadii aan hormuud u ahaano ama dawladdii aan hormuud u ahaano ama bulshadii kale aan hormuud u ahaano horta Soomaali haddaan nahay akhyaaray waxaad ogaataan waxaan u baahannahay awood dheeri ah iyo waqti dheeri ah iyo xaalad walba aan qabanayna in laba aan u shaqeyno caalamkeena aan la qabsano dhulkeeni dadkeenina aan dhisno taa marka maxaa ku maldahan luqadeena waan u baahannahay si aan dalkeena u dhisno caruurteena mindkooda aan u dhisno waan horumarsanaynaa ka dawlad ahaan siyaasadaha tayeenta waajibaa naga saaran micnaheedna ma ahan waan qabanay ama waan qaban doonaa ma ahan laakiin waxaan saaranahay cagti aan isku horumarin lahayn waxaa laga hadlay dawladda ayada laftirka in af Soomaaliga adeegsanin waarun ma adeegsato laakiin haddeertaan waxaa la isku khasbayaa in afka Soomaaliga wax walba loo adeegsado wasaaradda waxbarashada amar waxaan ka soo saarnay xataa presentation inaan la sameyn karin hadduusan af Soomaali ahayn marka sixidda mar walba guryahay ka bilaabataa horta dalkeeni si aan u saxano
yaanan lumin soomaalnimada yaysan naga lumin haddaan qabiil ku dhex lugnay haddaan xaalad kale usii socno jamaaca la leeyahay si aan caruurteena mustaqbalkooda uga fikirno yaanan horta ku dhex lumin luqadaha la qalaad si aan ula qabsano caalamkana yaanan ka harin caalamka luqadaha qalaad ardaydeen abarno waa idin mahad celinayaa waxaa la isaaray mas-uuliyad ah shirkina soo gunaanado aada la iisoo fiirinaya gadaali horeyba khitaam miski ah ilaahi subxaana watacaala ha nooga dhigo mas-uuliyadda dowladeed iyo midda ummadeed iyo midda bulshana wada saaranna waa ka culus tahay waxyaabaha yaryarka aan arkayno haddii jaamacadaha ay arkayaan inay keliya soo saaraan arday 4 sano ama 5 sano ama 6 sano iskuul ka baxay برينا تياتركا أما هوتيلada intii la geeyay leeyahay numberkaasa ka baxday faculty hibil ama hibil ka baxday waa ka weyn tahay ee waxaan u baahanahay waxa waay ardayga marka uu baxo ilaa ay bulshada uu kala qabsado uu kala noolaado sidoo u sameeyay malaha ayaan ka shaqeynaynaa waana mas'uuliyad weyn oo u baahan anagoo dhan marka inaan u fikirno inay tahay wax ka weyn waxa aan xambaarsanahay ee soo dhow ama faa'iidaha laga raadiyo ama magaca laga raadiyo waa mahadsantihiin salaad aan ugu jirtaan u maleeyaa marka insha Allah halkaas aan ku soo koobaya soo dhawaad